بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان مالك سودنا دعالة ذاك الجوكتان ومرك على برنامج شديد إني أتكلم ساعتين ايرو تي في. أنت بدن برنامج ايرو تي في وحنا ذاك صوت برنا معدك أنا ومقعد درني نقنك يا تاريخ ده عريدك معدك سو أنت بدن أنخوك هيد النوح يا بدن أو دجال نقول دونا داها أما فعها صوص عده برشة الصوماليين وبرنامج كني أنا ومقعد درني geyigeena maqaniya galbeed oo maanta aanu marayno xiriirkii ama qaybtii tobnaad inta badanna aanu kaga soo hadalnay dhinaca shishe iyo galbeed qaybtii ka horreysay waxaynu kaga hadalnay dhulweynaha aanu ugu magac darnay Tana iyo Liban oo ah dhulalkii maqnaa ama 6dii degmo ee 63kii wixii ka horreeyay ay maamulayeen bulshada Soomaaliyeed qaybteennan maanta waxaan dul taagannahay isla qodobkii koowaad oo aan runtii aynu doonayno inaan wax badan maanta idinkula wadaago wax badanna way inoo dabran yihiin ama way inoo darban yihiin oo way soo socdaan maanta markaa waxaan ka hadli doonaa 2 qodob qodob ah arrin cajiib ah oo idinla wadaagi doono oo idinkuna ay tahay inaad wixii su'aal iyo aragti aad ka dhiibataan dadka daawan doono ama YouTube ka daawan doono ama live daawan doono in iska weydiiyaan wax badan waayo taariikh badan oo qarsoon iyo xiriiro badan oo bulsho oo inagu meegaaran ayaa jira oo aynan weli daahfurin kuwaasayna ka mid noqon doontaa clips ayaa idinku soo maqan nin odaya ka warramayo clipskaasi marka aad isku daydaan inaad samir yar u yeelataan daqiiqadaha uu socdo kadib waxa ninka odayga uu ka sheekeynayo ayaynu isdul taagi doonaa dabadna qodobka labaad ayaynu u gelaynaa clipskaasi bal marka hore aynu yar daawanno waxa halka inooga soo bixi doono su'aalo badan baa ka iman doono su'aalahaasina qayb ayaad ka tihiin daawadayaasha inaad wixii aragtidiina ah ama aqoontiina ah ama way aragnimadiina ahna aad ka falcelisaan hadduu ilaahay yiraahdo bal clipska markaa aan idin soo horo oo ah qaybtiina koowaad ee barnaamijka qayb labaad kalena ay noogu xigto bal aynu yar daawanno. Joseph, I'm the son of the chief, and I'm here of the Samburu village, and in this village we are 19 families. We are nomads, and normally there are 3 main reasons why we don't move. First, look for water. Secondly, look for good pasture. And thirdly, if somebody dies, we have to move. And also, we believe that we are originated from the northern part of Kenya, as what we should be told by our grandfathers. So what happened, it became something like a breakdown of a disease, that is smallpox. So the large number of people die, and also most of the cattle die. So they were only left 2 brothers and their mother. Before she dies, she told her sons, okay, my sons, now, because they are only male, no female, what you have to do, you go to other tribes. So instead of feeding the cows, you take the women so you can marry and bear children, because if you don't marry, then there will be no any more speaking. So what these 2 boys did, they went up to Somaliland. So instead of taking the cows, they come back with the girls. So they stay with their mother until the mother dies. After their mother dies, the 2 boys decide to take presents from their mother, and they were nicknamed, or they were given the names from what they took. The elder boy took the beads. These are beads. In the Ma language, beads, we call them Masa. So the elder boy who took beads Masa, all his generation became the Maasai. The other boy took a bag made from leather. In the Ma language, leather bag, call it Samburu. So the boy who took that leather bag Samburu became a Samburu. So that's why we have Samburu and the Maasai. And also, in this community, we are polygamy. A man can be allowed to marry as many wives as he wants. It depends on his wealth. And so, in a community normally, marriages is being arranged by the parents. وهجاج waxaan jeclahay inaad ka bogateen weerahaasi ama arinta uu ka hadlayo ninka odaga ah bal aan isdul taagno waxa uu ka hadlay iyo sida ay wax u dhaceen iyo bal waxay nooga soo dhaxbixi kara
iyo inaga ka Soomaalihan waxa inaga quseeyo aarahdan ninkan uu ka hadlayo ninkan odayga waxa uu yiri dhulkii aanu joognay waxa ka dhacay xanuun loo yaqaano xanuunka la yiraahdo xablabaaska ama furuqa oo kale smallpox ama waxaanu jeclay inuu furuqa yahay ama daacuun xanuun baa ka dilaacay xanuunka wuxuu sababay inuu dad iyo dunyaba ay leedaan ay dhamaadaan dunyada inteeda badan ay dhamaato iyagoo loo oday dhaqanayeen loo leebay ahaayeen dabadeedna gayaankii iyo xablihii iyo dumarkiina ay dhamaadeen waxaa soo haray laba wiil iyo hooyadood labadii wiil iyo hooyadood markay soo hareen islaantii ayaa wiilasheeda waxay kula dardaarantay ama ay kula talisay ama ay ku tirtirsiisay in inta aynan u dabar go'in maadaama dumarkii ay gayaankooda ah u dhamaaday inay qabaa'ilada dariska la ah u tagaan oo ay u guur doontaan labadii wiil waxay u guur doonteen geyiga Soomaaliyeed Soomaaliya tageen laba gabdhood bay guursadeen dabadeedna hooyadood bay oo la yimaadeen muddo dheer kadib sheekada way dheer tahay inta dhuxurkan ka soo qaaday muddo dheer kadib hooyadood waa ay geeriyootay markii ay geeriyootay waxay labadii wiil soo qaateen wixii ay hugii ay xirneed ama wixii ay wadatay hooyadood oo ahayd kuul iyo saan ama maqaar dabadeedna wiilkii weynaa waxa uu qaatay kuulihii waxa loo baxshay Maasai wiilkii kale yaraana waxa uu qaatay saanti waxa loo bixiyay sambur ama samburu haddaba sida ayay wax u dhaceen aynu markaa dul istaagno inaga waxay naga quseeyay iyo su'aalaha halka ka soo dhaxbixi karo waayahay waxa jirta wuxuu yiri markii daacuunkii ama furqii uu dhacay ee aynu dad leedeen ee dhamaadeen waxaana lagu taliyay inaynu u guur doono qabaa'ilada kale waayahay wiilashan maxay ku doorteen geyi Soomaal inay tagaan dhulka Soomaaliyeed inay tagaan ma qabaa'ilo kale dhulka jirin ma inaga iyo iyaga ayaa markaa yani gudbooneen oo meel wada naalay oo daris ahayn waa su'aal u baahan inaanu ka jawaabno daawadayaashana isweydiiyaan su'aasha kale meesha ka soo dhabaxaysa waxa weeyaan wiilashan markay geey dhulka Soomaaliyeed tageen gabdhaha loo dhisay sidee gabdhaha loogu dhisay ama ay u guursadeen dadka Soomaaliyeed waxay ahayd dad xagga guurka iyo dhaxgalka oo aad ugu adkaa marka maxaa u sahlay inay gabdho Soomaaliyeed guursadaan waa su'aal meesha ku jirto xiriir hore miyaa jiray qabiil dadkan iyo Soomaalida ka dhaxeeyay waa su'aal meesha ka soo dhaxbaxaysa iyadana waxa kaloo iyadana u baahan in wax la isweydiiyo qabaa'ilada ay markaa u tageen ila meel walba qabaa'ilada deganaa oo maamulayay oo ka talinayay dadkay ahaayeen ee Soomaaliyeed ee markaa waxa kaloo ku jirta iyadana wiilkii weynaa waxa loo bixiyay Maasai sababtoo ah kuushii hooyadii ayaa loogu magac daray Soomaalidu waxay lahayd wax la yiraahdo martabad ama magaca qofka la siinayo la iskama siin jirin waxa uu ku bixi jiray sabab xilliga la joogo milayga waayaha abaar colaad jiilaal maxaa la yiraahdaa geedigooda leeyahay iyadoo hayaan leeyahay iyadoo la dagaalamayo iyadoo barwaaqo lagu jiro iyadoo maxaa la yiraahdaa qofka oo dagaalamayo qofka oo aabihiis soo maqan hooyadiis soo maqan aabihii oo geeriyooday hooyadii oo dhimatay abtigii oo jecel yani reerka oo qofkii ugu yaraa oo ahaa reerkii oo hooyadiis oo markaa ku umul raacday magaca wax uu ku bixi jiray wiilkan marka weyn waxa loo bixiyay Maasai sababtoo ah kuushi ayaa afka ku noqonaysa Maasai inaga ma leenahay eray bixinta dad loogu magac daray kuusha ha qabaylo badan baa jira qabayladaasi waxa laga yaabaa dadka maanta ku abtirsado inaysan eray bixintaasi dhiraan dhirin ama aysan mashiiqsan ama aysan isweydiin sababta loogu bixiyay koo waxa soo qaadanaa reerka leeyahay reer kuul waa reer ka tirsan beelaha Ciise weyne beelaha Ciise madoobe ay min raleada beesha Ciise ayuu ka tirsan yahay reer leeyahay reer kuul waxa jira reer leeyahay kuul caare oo ka tirsan Habryonis waxa jira kuulow reer leeyahay waxa jira reer leeyahay kuulane maxaa loogu bixiyay kuulaha iyo martabada haday waxaan niri magaca qofka looma bixinayo ilaa martabad ilaa wax uu u qalmo
ama uu u dhigmo ama uu matalo ayaa loogu bixinayay reerka kale markaa sambur horey waan ooga sheekaynay dhowr mar sambure iyo sambur iyo samburu iyo sambar intaba waan ka hadalnay kanna markaa saantii hooyadii ay huga u xirneed labadii qayd ka mid ah ama qaydkii mid ka miduna ah ayaa asna loogu magac daray oo uu soo qaatay sambur markaa ayaan u naqaanaa buu yidhi saantaasi ninkii soo qaatay saanta innagoo maxaan af soomaali u naqaanaa maxaa jiro hargo iyo saamo haragga iyo saanta waa isla harag laakiin saanta maxaa laga sameeyaa jaakadaha kabaha suumanka waxyaaba badan baa laga sameeya marka waxaa jirta wasaarad la yihahdo wasaaradda hargaha iyo saamaha marka ninkan saambur loo bixiyey wuxuu noqon karaa saanta qof ma jiraa ama qaab qabiileed ama qaab soomaaliyeed saan sameeye waxaa jira saangure iyo saan sameeye iyo saamtire ayaa jira reero dhan oo ah iyo saambur marka labadaani magac masai iyo sambur erey soomaalina way ku noqonayaan martabadda iyo micnaha marka dib loo raaco afkii soomaaligii hore ee rogmay ama lumay ama tallaabay marka loo noqdo way ku noqonayaan su-aasha marka aan ugu dambaysa isweydiinaya waxa weeyaan dadyowgan maanta hadda xilligan hadlaya ee taariikhda ka sheekaynayo intooda badan waa dadan diin haysan waa dad aanan christian ahayn dimaas maga haysan muslim ma ahayn laakiin waxaa jira xilliyo bulshadu wax badan ay wadaagaysay ay dhaqanka wadaagayeen qeexitaanka soomaalinimada qofka soomaaliga marka la qeexayo diinta islaamka marka aanu qaadanay diinta islaamka ee samaawiga markaynu qaadanay een quwadda yeelanay een xoogga noqonay ee ahaydna markii aan ugu awoodda badnayn qeexitaanka qofka soomaaliga wuu isbedelay qof aanan soomaali ahayn qofka soomaaliga ah waxay qasab noqotay in uu muslim yahay inuu yahay qof tawxiidka haysta dad badan oo soomaaliyeed marka oo aan diinta islaamka qaadan baa jira horeyna waan ooga sheekeynay dadyowgaasi marka way kari waayeen ama way ku dhici waayeen ama way noqon weyde inay la noolaadaan dadkii soomaaliyeed sababtoo ah diinta islaamka ma haystaan dadkaa marka magacyaa loo bixiyey xeradii ama xindaabkii soomaaliyeedna waa laga saaray dabadeedna qoomiyadihii kale ee berigii hore dee ood wadaagta iyo jaarka iyo wax dhaqanka iyo waxyaabo badan la wadaagi jiray ayay la midoobeen way taloobeen marka way tallaabeen kolkaa haddaad doonaysid islaamka ka hor qayb ka mida soomaalida siday u ekaayeen dadyogaasaad maanta eegi kartaa qaabkay u labisan yihiin wax badanna weli la wadaago oo dad badan oo soomaaliyeedna ay hubqaadkoodii weli ay wataan taa markaa intaasaan qaybtii koowaad kaga baxaya wixii halkaas ka soo baxay ama aad aragteen ama aad ka fahanteenna kulley faahfaahinteeda waanu u baahannahay waad mahadsantahay marwaifka cali waa run saangur wuu jiraa saangur waan sheegay inkastoo dadka qaar ay saangur xayawaano ka mid ah sida dhidada bahashan la yidhaahdo xabaalaha qodota loo yaqaano dhidarka qayb bah wadaag la dhidarka ayaa la yidhahdaa saangur laakiin asalkii waxaa laga yaabaa saangur inuu micno kala lahaa oo dad ay ahaayeen sancadaa iska lahaa inay ahaayeen baa dhici karaysa waa run waxyaabo reero badan baa jira oo reer kuulkaasi wata laakiin saa hore u sheegay waxaa dhici karta inaan ereyadan dib loo raacin oo aanan la micnaynin oo aan laga daba tegin oo sidooda loo haysto kolkaa aad baad mahadsantihiin daawadayaasha kasoo falceliyey iyo kuwa kasoo falcelin doono macadka cere edeg mar walba wuxuu diyaariyo inuu kaydiyo ama idiin soo bandhigo waxyaabo badan oo daahsoon ama u baahan in la lafaguro ama aan qiimayno qodobka koowaad intaasaan kaga gudbayaa qodobka labaad baan u gelayaa qodobka labaad waxa weeyaan waa kulan na dhex maray aniga iyo nin la yiraasaan hore u sheegay maxamed jaamac oo soomaaliyeed oo ka qaba qoomiyadda loo yaqaano turkana maxamed jaamac safarkaygii markii hore maalintii hore wuxuu joogay magaalada yahda archbox oo magaalada siyolow ku dhegan oo daabiyada ama heejad yar ah waan ka soo gudubnay dabadeedna waxaan nimid magaalo kaloo la yihahda marinle
marinle marka ay meesha ku taalo dhinacana waddo kale aado magaalo la yidhaahdo marlaal ayay iyaduna aadaa marlaal iyo marinle labadaba waan fasiri doonaa waxa ay soomaaliga ku noqonayaan iyagana marinle markaanu nimid waxaan saan hore u sheegay waa daabiyad yar bay ahayd markaa iyada ah tuulo yar bay ahayd waxaa ku yaalla hodheel weyn hodheelka ugu weyn oo cunto laga cuno lana seexdo gabadh soomaaliyeed oo u dhalatay beesha dhulbahante ayaa hotel ku haysata halkaasaynu ku degnay maxamed jaaca marka anigu halkaasaan ku kulannay marka waxyaabihii aan ka sheekaysanaa inuu iiga sheekeeyey mid ka mid ah idinla wadaagaya kuwa kalena qaybta dambe kusoo daraya waxaan ka waraystay waayihiisa maadaama igu yidhi turkaanan qaba gayaankiisaan ka waraystay iyo sida uu turkaane uu gabadha ugu guursaday iyo waxa la galay wuxuu ii sheegay inuu ahaa nin ganacsada ah meelaha la yidhi magaalooyinka anigu dhulkaas ma tegin la yidhahdo loktokia iyo lodwa kulley rag badan baa dhulkaa maray oo tegey way jiraan loktokia iyo lodwa deegaankaasuu inta badan ka ganacsan jiray ilaa iyo rift valley gobolka la yidhahdo kisumu iyo nakuru iyo eldoret iyo meelahaasi gabadha markaa guurkeeda iyo qaabkii waxaa igala muhiimsan aniga qiso uu iiga sheekeeyey inaan idinla wadaago oo ku salaysan waxa la yidhaahdo caado dhaqameed caado dhaqameedka markuu aniga iiga sheekeeyey waxaan u bixiyey caado dhaqameedka baylahtirka xubinta taranka ragga caado dhaqameedka baylahtirka xubinta taranka ee ragga arrintan waxa weeye marka waa mid aniga markaa dheegaaga igu reebtay markuu iiga sheekeeyey uu ka warramay laakiin mar dambe wax badan baaray oo dhaqamo badan eegay waxay ila noqotay wax caadi ah laakiin dhaqanka iyo soomaalinimada marka loo barbar dhigo waa wax ragga qaarkii ay isdilaan marka laga sheekeeyo waxaasoo kale wuxuu yidhi waxaan kaaga warramayaa kaalinta ay leedahay sodohda ee soomaali ahaan iyo dhaqanka islaamka iyo innagaba waa wax aad loo qiimeeyo oo aad u muhiim ah sodohdu waa hooyada waa xaaskaaga hooyadeed adigana waa hooyada ixtiraamka iyo sharafta iyo karaamanta iyo weynaynta waa hooyo kaalinta markaa ayuu iga warramay inta hore dhan waan qaadan la'aa wuxuu yidhi hooyadaasi ama sodohdaasi waxay runtii qaabilsan tahay saan hore u sheegay baylahtirka xubinta taranka ragga marka hore waan fahmi waayey marka dambe wuxuu igu yidhi hooyadu islaantani dhagaxaan bay sidataa buu yidhi laba dhagax iyo dhagax kale sidataa raggaasi markaa waxay ahaayeen buu weliba xilligaa uu ka sheekaynayo waa horaantii toddobaatameyadii iyo waxaas uu ka sheekaynayo oo dadku inta badan ba iska qaawanayeen raggu qayd yar bay halkan ku sitaan way iska qaawan yihiin qayd yar bay sitaan inta sare way feera qaawan yihiin qaydka markaa dadku bilaa camal dad daawateen inta badan meelaha daabiyadaha iska joogaan geedaha hoostooda wax lagu ciyaaraa bahashan jarta la yidhaha ama shaxda soomaaliduna ay ciyaarto halkaasaa ragga ku kulmaa dumarkuna dee kama agdhow rag keliya meeshaa jooga raggu markay fariistaan buu yidhi raggu markay sidaa u fariistaan ninkii ragga ahaa nigis ama kalsuun ama batante ma sito yacni xubintii taranka ayaa ka dhacaysuu yidhi oo dhulka ku dhacaysa sodohdu marka sheeday ka eeganaysaa buu yidhi wiilkaasi kaalinteeda waxa weeye wiilkaa ay sodohda u tahay inay baylah tirto marka wuxuu yidhi dhagax bay sidataa sheeday ka eeganaysaa dusha ama xagga kore markay aragto ninkii inuu baylahan yahay oo xubintii taranka dhulka kaga dhacday way soo ordaysaa buu yidhi dabadeedna dhagax bay u dhigaysaa ma wiilkay sodohda u ahayd ba inta u timaado ayay xubintiis taranka ta qaaday dhagax u dhigaysaa haa oo waxaas markaa waa maxay waa caadada deegaanka waa baylahtir iyadu intaasay qaabilsan tahay marka ma dadka oo dhanba ma meelo gooni aha wuxuu yidhi waa deegaankaasi caadadaasaa ka jirta wiilkan hooyadiina wuxuu ku ixtiraamayaa inay hawshan qabato aniga waa ila qaadan waayey markaa dhaqankeennii iyo soomaalinimadii iyo sodohda halkay joogtay iyo wiilka iyo yacni sida loo kala fog yahay markay arrintu halkaa marayso waa qaadan waaye wixii hortaaba loo qaadan waayey taasi markaa markay halkaa marayso ee aan magacana ugu magacdiro baylahtirka xubinta taranka ragga inay shaqadaani tahay ayaan markaa asagii la kaftamay waxaa ku yidhi maxamedow adigu sodohdaa intee ku baylah tirtay imise goor ayuu ku baylah tirtay kuwii waaye markaasuu intuu qoslay wuxuu yidhi anigu dufadii arkay anigu dhar baan sitaa nin soomaali aan ahay anigu waxaa yeeli maayo gabadha waan ka qabaa laakiin dee anagu ayagu dee wax kala inoo dhexeeyo gabar waan ka qabaa laakiin dhaqankii caadada ay leeyihiin anigu marna iguma dhicin
marka kaftan badan iyo waxyaabo badan oo kale ayaa markayna dhex maray iyo wax kale oo badan oo inooga sheekeeyey qaybaheen dambaan markaa dib u dhigan doonaa gebagabadii barnaamijka iyo gunaanadka waxaan rabaa inaan labadaasi magaalo isdul taago marinle iyo marlaal ajabox markii la joogo wadada A2 ga la yiraahdo ama dooga A2 la yiraahdo ayay u kala baxdaa oo midna waxay aadaa toos iyo hoos masabid bay aadaa midna hulkaan ay aadaa dabadeedna ilaa iyo gobolka Turkana iminkaan ka sheekeynayna hoose ayay gunta xakaas yani kasii jeexdaa oo ilaa iyo harada Turkana ay aadaa magaalada meesha la yiraahdo har meesha la yiraahdo horta waqooyi iyo horta galbeed ayaa jira erayada horna waan fasiri doonaa marlaal marka Soomaaliga muxuu ku noqonaysaa marlaal erayga marlaal waxa weeyaan mar waad garanaysaa waa kol ama waa tooko laalidna waxa weeyeen waa wax la daadaafeeyey wax la diiday wax la tuuray sharcigaani waa la laalay sharcigani looma baahno mar baa marka la laalay eray bixinta marka magaaladaasi af Soomaaliga waxay ku noqonayso waa magaaladii uu ka dhacay arrinka mar la tuuray arrinkaasi marka la tuuray sidaa noqotayna iyadana dib ayaan insha Allah ka raadin doonaa cilmi baaristeena wadna laakiin waxaan adeegsanaynaa linguistiga ama cilmi afeedka gaar ahaan eray isreedka yani halka uu ereygani aslan Soomaali ahaan ku yeelan karayo marlaal oo ah Soomaali ku noqonayso meeshii ka dhacday xaajadii mar la tuuray la diiday la daadaafeeyey maalinleeyo markaan joogo oo maanta safarkayga uu taagan yahay oo iminkaan dhex taaganahayna xiriir baa waxaa ka dhexeeya xiriir ayaa waxaa ka dhexeeyo laba weerood oo aan isleeyahay waxay u baahan tahay in halkaas si fiican loo eego mariinle mar waxay noqon kartaa ruuxii maariinka ahaa oo maariinle ah waxaa jira oo kale noqon karaysaa mariin ereyga Soomaaliga waxaa jira wax la yiraahdo marasho iyo masruuf iyo mariinka marka waanu wada naqaanaa waxa uu yahay mariinle marka kii meeshaasi waxay noqon kartaa meeshii qofkii qaawanaa lagu cawra tiray oo hul loo xiray oo mariin la siiyey mariinka waynu naqaanaa dee waa huga dumarka ama dumarka la mariimaa oo dee dhar iyo adduunye iyo waxba la siiyaa marka meeshii waxay noqon karaysaa ninkii qaawanaa lagu mariin tiray oo mariin le ereyga le haddaad maqashid waxa weeyaan waa shay wax qaatay waxbuu lahaaday waa lagu laray mariin le meeshii lagu mariin tiray qofkani waxaa kale oo ereygani uu aad ugu dhow yahay oon runtii aan iminka markaan baarayay aan aad ugu soo dhaweeyadana idinkuna aad ka falcelin karaysaan waxay idinla tahay beesha magaceeda la yiraahdo murale marinle iyo murale dhawaqa marinle iyo murale waa beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo deegaankeeda maanta uu xoogeeda ay degan yihiin magaalada la yiraahdo Mandera oo ka tirsan North Eastern Province Kenya waa reer ka mid ah ganacsada waaweyn ee Kenya waa reer lagu yaqaano deganaan iyo qiimo iyo Soomaalinimo oo aad u sharaf badan runtii way dhici kartaa markaa deegaan ahaan inay deganaayeen meeshaasi oo murale deegaankiisu uu ahaa marinle meesha maanta loogu yeerayo waa suurtagal waayo dadku waxay sameeyaan waxa la yiraahdo geedi iyo guurguur isriix qabaa'ileed qowmiyadaha isriixa abaaraha dhaca dhibaatooyinka markay ay waxa la yiraahdaa dagaaladu bataan xanuunada waata sida la soo wareego marka magacaasi inuu markiisii hore ahaa marle oo magaca uu halka ka soo jeedo boqolkiiba boqol ma hubo laakiin labada weerood way isku xirmi karayaan cidii war kala haysana wadna la wadaagi doontaan barnaamijkeennii geyigeena maqan iyo galbeed qaybtiisa tobnaad iyadana inta ayaan ku soo afmeeraynaa waxay naga xasuusinay wixii talo iyo tusaale ah runtii waxaad inoogu soo gudbin karaysaan airo@gmail.com macadka carre edeg waxa uu mar walba u heelan yahay inuu soo bandhigo waxyaabo badan oo bulshada ay u jeel qabaan ama ay tahay inay ogaadaan waxa kale oo aanu doonaynaa erey bixinada martabadaha magacda iyaduna inaynu isku dayno bal inaynu dhiraan dhirino
barnaamijkan markaa qaybta xigta magaaladaasi marinle waxyaabo kale buurtii qabiilka la yidhaahdo Rendinle ay kutubta ku gubeen axdigii meesha uu ka dhacay Arya oo Sambur ah qabiilka ugu weyn Sambur axdigii kitaab gubidda la yidhaahdaa axdigaasi buurta uu ka dhacay ayaa inoo soo socdo waxay noo soo socoto qowmiyadda Burji qowmiyadda Boran qowmiyadda Gabra qowmiyadda Guji sidaasaan dhex mari doonaa insha Allah qaybteena dambe ayaana runtii aad naga heli doontaan aad baan idinkaga mahad celinayna dhammaan inta daqiiqadka ku jirta iyo inta soo geli doontaba waxaan idin leeyahay fi amaalinah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh